Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa baxda barbaarin online school kuwaasoo sanada cusub 2020 kuugu bishaareynaya inay ku bilaabi doon 2 kooras oo cusub. Kooras koowaad waxaad ku baran doontaa habka isku xirka luqadda Ingiriiska hab gaagaaban kaasoo si casri lagugu bari doono adoo gurigaada iyo goobtaada shaqo jooga. Kooraskan waxaan ku baran doonaa daily use English oo daily spoken English Ingiriiska si caadiyan ah loo isticmaalo markii aad goobtaada shaqada iyo gurigaada aad joogto si dadka agtaada jooga iyo adiga aad isugu fahantaan. Come in, soo gal ama kaalay. Sit down, fadhiiso. Open the door, fur albaabka. Close the window, xir daaqadda ama dariishadda. Come in, soo gal ama kaalay. Sit down, fadhiiso. Open the door, fur albaabka. Close the window, xir daaqadda ama dariishadda. Give my regard to Amina, igu salaan Amina. Give my regard to Amina, igu salaan Amina. Call me after the lunch, qadada kadib isoo wac. Call me after the lunch, qadada kadib isoo wac. Say hello to your dad, aabaha igu salaan. Get lost, get out, get lost or get out, bax ama tag. Get lost or get out, bax ama tag. I am in hurry to somewhere, meel ayaan ka degdegsanahay ama meel ayaan u degdegsanahay. What are you busy in? Maxaad ku mashquulsan tahay? What are you busy in? Maxaad ku mashquulsan tahay? The telephone is out of coverage. Anteenada way maqan tahay ama anteenada taleefanka way maqan tahay. Maadaama aad kooraskii hore aad kusoo barateen habka hadallada gaagaaban la isugu xiro iyo hadallada gaagaaban qaabka aad ugu hadlayd markii aad gurigaada iyo goobta shaqada aad joogto. Kooraska soo socda isna ama kooraska labaad isna waxaad ku baran doontaan sida soo socota. Waxaan ku baran doonaa English Grammar Course. Waa kooras lagu baranayo naxwaha Ingiriiska ama grammarka luqadda Ingiriiska ah. Kooraska barashada naxwaha luqadda Ingiriiska ah run ahaantii wuu fududahay haddii aad instruction-ka soo socda ama waxyaabaha gadaal ku qoran haddii aad raacdo. Naxwaha Ingiriiska inaad barato waxaa kaa xiga inaad kala fahanto 8 parts of speech, 8 nooc oo hadalka loo kala isticmaalo. 8 parts of speech. Nouns waa magacyada, pronouns magacyada, adjectives waa sifooyinka, verbs waa ficilada, adverbs waa falkaabiyaasha, prepositions horgalayaasha, interjection iyo conjunction ayakane waa raaciyaasha. Waxaan ka bilownay qaybta koobaad sida aan ciwaanada 8 xabaa usoo kala hormarinaba. Nouns oo loo yaqaano magacyada ama barashada magacyada. Nouns waa qeexaad lagu sameynayo chapterka koobaad ee nounka loo yaqaano ee 8 parts ee grammarka ama 8 parts of speech-ka loo kala qaybiyo. Nouns are the names waa magacyada given to la siiyo to persons shakhsiyaadka, places meelaha or things ama shayyaasha. Such sida man ninka, student ardayga, teacher macalinka. For persons ayay example u yihiin ama tusaale u yihiin waa shakhsiyaad ah. School iskuulka, hospital isbitaalka, mosque iyo masaajidka. For places ayagana waxay tusaale u yihiin meelaha. Table miiska, chair waa kursiga single-ka ee hal qof ku fadhiisan karo, car waa gaariga, bus waa baska. For things ayagana waxay tusaale u yihiin shayyaasha. Nounka aan sheegnay ee aan ka bilownay waxaan u kala qaybinaa sidoo kaleento 4 qaybood ayaan u kala 5 qaybood ayaa loo kala qaybiyaa sida meesha lagu qoran, laakiin si caadiyan ah waxaa loo dhigaa 4 qaybood. Qayb ka mid ah waxaa loo isticmaalaa in 2 qaybood oo kale lagu kala daro. Qaybta koobaad ama kindska nooca koobaad waxaa proper noun waxaa loo isticmaalaa magacyada khaaska ah. Common nouns magaca guud. Collective nouns waa magacyada group dad ah ama group ama koox dad ah la siiyo ayagoo wadar ah. Material nouns isagana waxaa lagu bartaa cuntooyinka, khudradda iyo waxyaabahaas ayaa lagu bartaa. Abstract nouns waa magaca aan la taaban karin, la arki karin laakiin la dareemi karo.
material nouns isaga waxa inta badan dadka grammarka dhiga ama culamaa ul English ma dhigaan. Inta badan waxay sameeyaan common noun iyo collective noun loo kala qeeyo maadaama cuntooyinka iyo qudaarta oo ka hadlayo, laakiin annaga si caadi ah inaan u dhigno oo ardayga aan barno ayaan meesha u soo qaadanay.